الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولاً نقول صلى الله عليه الشركة وقرية قدوميها دقمة حرب عبد القادر عمر محمد حريها وسارة أرمها قويسكا إيو أرمها هوينكا إيو قويسكا قدوميها أوركا هوينكا قدوميها دلنيرada صحافة dhammaan iyo waxgaradka iyo caqashka soo qayb gashay shirkan oo ah shirka ururka naafada degmada Xarfo shirka ururka naafada degmada Xarfo wuxuu ku saabsan yahay aan maanta shirkan u qabanay inaanu ka warbixino kuna soo gudbino dhammaan codsiyada iyo arrimaha ay u baahan yihiin dadka naafada ee degmada Xarfo ku nool baan ku soo gudbinay awal markii waxaan ku bilaabayaa ururka naafada degmada Xarfo waxaanu asaasnay 12kii bishii sagaalaad baanu fikradan ururka inaanu asaasno oo aanu keenay barnaamijkaas ilaa muddo badan baanu soo wadnay oo dadka naafada inaan soo ururino arrimahooda iyo baahiyahooda iyo waxyaalaha ay u baahan yihiin aanu dad ka turjuma oo u qareema aan u sameeyno ilaahay mahadis weeye maanta waxaanu u sameeynay ururka madaxdii ururka u qareemi lahayd xubnihii ururka u qareemay gudoomiyihii ku-xigeenkii xogayihii ururka iyo guddigii kaleeto oo kala qayb qaadan lahaa arrimahaas lana fulin lahaa la wadi lahaa halwadeennada la ahaa ujeedaan dadka inta tirsi leeg oo halkaan gabran oo naafaa iyo in ka badan oo hadda magaalada taalla in soo socon weyday iyo inaan hadeer wali aan saakay aan helin in loo surto shirka soo qayb galanba magaalada ay ku nool yihiin aad baan u mahadcelinayaa gudoomiyaha degmada Xarfo oo barnaamijkan aad nooga qayb qaatay nuguna dhiirigeliyay inaan qabano maanta shirkan oo isagu saxaafadda iyo arrimahan iyo barnaamijka suuqeynista qaybta ugu weyn ka qaatay laxaad leh xiriyaha ururka haweenka oo maanta lagu soo dhaweeyay qolka guriga ururka haweenka gudoomiyaha ururka haweenka dhamaantood aad baan uga mahadcelinaynaa marka arrintan ururka naafada degmada Xarfo waxyaalo badan iyo baahiyo badan oo ay leeyihiin baa jirta kow dadka naafada waa dadka ugu nugul dadka bini'aadanka hadda jooga dadka ugu nugul weeye waxa ku jira indhoolayaashii waxa ku jira kuwii lagu halaa kuwii gacmaha la ku jira waxay isku leeyihiin intaas ba qofka ay u dhameystiran tahay xuquuqda uu leeyahay oo kale ay leeyihiin haday doorashada tahay haday shaqooyinka tahay haday ay tahay arrimaha dhamaan dadka arrimaha bulshada oo dhan qayb kasta ku leeyahay waxaad madaasa qaybahaas oo dhan dadkaas in ay ka harsan yihiin oo ka dhacsan yihiin oo aan cid ka warqabta iyo cid u dooda iyo cid u hadasha midna aysan jirinin marka ma sha Allah maantay waxaanu aan soo gudbinaynaa oo dawladda iyo ilaa heer madaxweyne heer gobol iyo heer degmo soo gudbinaynaa in dadkaas xuquuqdoodii ay helaan kow xuquuqdii naafanimo ay u lahaayeen oo ay yihiin dadka maanta ugu nugul inay xuquuqdoodii ay helaan oo naafanimo in ay helaan shaqooyinkii ay dawladda ay ku lahaayeen oo ay dadkaas kaga qayb qaadan lahaayeen shaqooyinka dawladda in ay helaan xuquuqaha maanta doorashooyinka wadanka ka jira oo Puntland hadda hal cod iyo hal qof baa la wadaa dadkaan inay helaan doorashada memberka iyo qaybta ay ku lahaayeen oo ay ka qayb galaan oo iyagu laftooda musharaxiin ay sameystaan iyaguna wax doortaan lana doorto waa arrimaha ugu muhiimsan oo aan rabno inaan xoog saarno hadii Ilaahay idmo waxay kale diyaar ay u yihiin dadkaan maanta cidii xiriirisa oo og oo dawladda ah in ayaguna diyaar u yihiin codkooda inay siiyaan doortaan maanta xisbiyo badan bay Puntland yeelatay waa ka soo gudubtay xilligii qabaa'ilka iyo odayaashii barnaamijyada ay dooran jireen dadka dooranaya maanta iyaga way dadka dooranaya cidii maanta dhaqaalahooda iyo ka warqabkooda iyo arrimahooda iyo barnaamijyadooda u fulisa oo iyagana og oo xiriir la leh in ayaguna ay doortaan soona saartaan waxa weeye arrintaas baa aad iyo aad la dawladda uga dooranaa marka waxaan leenahay ma sha Allah ururka naafada degmada Xarfo iyo dhammaan odayaashiisa iyo gudoomiyihii ururka waxaan ahay gudoomiyaha ururka naafada degmada Xarfo magaca Maxamed Cabdi Cabdi gudoomiyaha ku-xigeenka ururka waxa la yiraahdaa Mursal Warsame Xirsi xogayaha ururka Maryan Cabdi Cismaan baa la yiraahdaa xubnaha ururka kamid ah Cabdi Jaamac Xirsi iyo Farxiyo Maxamuud Umar dhamaantood waxay joogaan halkaan ay xaadir ku yihiin ay joogaan marka barnaamijka ururka oo asaasnay iyo muhiimadiisu waa intaas waxa ku soo wareejin shirku dhamaan waa salaamaya waxaan ku salaamayaa qayb kasto
hadday hay'adda tahay hadday saxaafadda tahay hadday madaxda degmada tahay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qol walbana qaybtii ay leedahay ka qaadato waxa weeye waxaan malaynayaa shirkaan wuxuu ku anigu dib ka dhacbaana shirkaan wuxuu ku saabsan yahay markaan kulay ururka naafada ee degmada Xarfo iyo wixii ereyadeeda hadda dad badan oo ereyadeeda degmada Xarfo kamid ah wali maqan naafooyin oo tuulooyinka iyo gobolada meel walba yaala dadkaasi indhoole lugoole kuwa aan kici karin oo naafan ahaayo curyaan ahaayo indhalana luganala aan kici karin baa ku jiro guryaha yaala dadkaasina dalka xaquuq bay ku leeyihiin wax hadda xaquuqda dalka ay ku leeyihiin ay ka helaan ma jiro hadday dawlad tahay hadday degmada tahay hadday hay'ad tahayba hadday xaquuqdii dalkaasi dadkaasi naafada ah dalka ay ku lahaayeen degmada Xarfo iyo inta ay xukunto waxaan u malaynayaa gudoomiye iyo waxba la magacaabay hadday degmadiiba mas'uulka ah inay waxay ka rabaan dawladda federaalka hay'adaha degmada Xarfo dawladda waxaan leeyahay Puntland federaalkan ku hafo Puntland iyo maamulka degmada Xarfo inay u qareemaan inay xaqooda siiyaan in badan baan shaqayn karin in badan baan wax qaban karin taa kulan bay u baahan yihiin kuwa hooy u baahan kuwa waxay cunaan kaliya daruuriya aan haysan Alla waafajiyo meeshaan waxay soo yihiin dad naafa ah inta hadda fadhida qayb baa gurgursho ku soo gashay qaybna gacanta la hayay waxa jira degmada qayb aan la soo qaadi karin macaan meeshooda loogu tago maahan meeshooda loogu tago aan la soo qaadi karin qayb baabuur lagu soo qaadan ma aan soo socon karin ilaahay baa xisaabi kara marka sida dadkii hore intii hadalka dhameeyay kuwa wax barasho u baahan oo inay wax bartaan u baahan kuwa waxay u baahan yihiin in mugsantahay ay tasiilaad kale helaan hadii qofkii ka dhacay tareenkiisii oo aan fursad hayn waad garan kadhaa qofna hadda loo waramayaa ma jiro dadkaas marka wixii tasiilaad oo loo awoodo ee xuquuq ay leeyihiin ama loo raadin karo in loo raadiyo oo ay xuquuq helaan bay meesha codsiga u yimaadeen ilaahay baa wax bixiya laakiin hadee binaadamkuna waa caawiyaado macnaha waxa weeye wixii hadda tasiilaada dadkaas awal wax barasho ma haysan wax tasiilaada ma haysan cid taageero ma jirin hadee dad binaadana weeyo waxay ka fakareen inay marka iska warbixiyaan dadkaas way iska warbixiyeen waxaana ka heli kara qofkii arko indhihiisa ku arka qof hadda looga warbixin kara ma jiro meel kastana waa laga warqabaa oo wuxuu geed qoyaankiisa inta aragtid in hal bisla soo qalalan baa ku jidha dadkaas maanta halkaas isugu yimaadeen waxayna codsanayaan in arrimaha ay u baahan yihiin tasiilaadka oo arrimaha bulshada oo tasiilaadka oo noloshoodii ay qofku markuu ka dhaca tareenkii ma shaqaysan karo kii shaqaysan is yiraahdo hadda waxba ka dhiman marka waa dad luga go'an dad maartay indhala dad dhagaala dad barlasa dad maartay kuwa aan qaadi karin oo macaa hadda in gurigiisa loogu taga maahan aan la qaadi karin baa ka buuxa marka waxaan insha Allah waxaan ilaahay weydiisanaynaa inuu khayr nasiyo wixii cidii warkay u gaadho ama Puntland ha ahaado ama federaal ha ahaado ama degmada ha ahaado cidii warkay u gaadho inay mugsantahay iyo cidii la shaqeyso hadda tasiilaadkaas arimahaas ay qusayso inay arimahaas naga caawiyaan saasaan soo jeedinaynaa anigu waxa dadka lugaha manay goono ilaa alxamdulillah u shawaaniga mudaniya laakiin dadka lugaha hala baan ku jiraa waxa weeye insha Allah waxaan khayr baa ilaahay weydiisanaa ilaahay baa wax bixiya laakiin way iska warbixinay maanta haddii dadkuna Soomaalidu ama hay'adka ha u timaado ama iyadu hays caawisay hadda codsigaas meesha loo yimid wax qabadka ilaahay baa iska laakiin codsigaas maanta soo diisanay in la shaqeeyana waa rabnaa in la caawiyo waa rabnaa wabillahi tawfiiq qaar waa gurguuranaya qaar gacan iyo lug bay leeyihiin qaar indhahay leeyihiin hadda gabadha halka gurguuranaysa haday gaari haysato ilmaheeda u soo riixi lahayd oo soconta gaariga meesha ku imaan lahayd qaarba meel buu saaran yahay marka waxaan rabnaa inta oo hor ordayo cabaar naga horeeya naga daayo wixii runa madaxda sharafta la inaan helno taan curyamada nahay taan indhoola nahay qayb kasta isku mid baan nahay bal rabaa waan ka bax bismillaahir rahmaanir rahiim awalan
maanta shirka kulankan waa salaamaya anoo ku hadlaya afka wasaaradda arrimaha qoyska ee degmada Xarfo shirkaani wuxuu ku xusan yahay ama daaran yahay ururka naafada ee ku nool degmada Xarfo dhan walbaba xafladan ayaga dhiganaya waana soo dhaweynaynaa hadaan nahay kan wasaarad ahaan ama maamul ahaan run ahaantii farxad weyn maanta waxa ii ah shirkan aan ka soo qayb galay oo ay qabsanayaan ururka naafada degmada Xarfo aad iyo aad bay ugu badan tahay waa dad soo jireena nooc walba bay leeyihiin haday baraalis tahay haday waalid tahay hadii ay gacmo la'aan tahay haday dhagoolo tahay haday dhanka maanka tahay wax noogu qabto oo maxaan ku iraahdaa loo daldalgeliyo oo maxaan ku iraahdaa taageerana waa waxaan inta doonaynay oo raadinaynay maadaama ay maanta noqdeen dad isxilqaamay oo isa soo saaray oo xifradoodii iyo caqligoodii halkaan la yimid anagu kan wasaarad ahaan ama maamul ahaan ama degmo ahaan waa soo dhaweynaynaa waana la qaadanaynaa ida laalcidii ay qusayso baaq dheer iyo baaq qaabanba shirkan waxaan salaamayaa gudoomiyaha degmada Xarfo waxaan salaamayaa guddiga naafada xiriiryaha wasaaradda haweenka gudoomiyaha ururka haweenka gudoomiyaha ururka dhalinyarada aniga magacaygu Xamdi Axmed Cismaan waxaana xubin ka tirsan wasaaradda haweenka degmada Xarfo aad baan maanta ugu faraxsanahay inaan arko dadkii magaalada naafada ahaa oo hadlaya oo baahidooda ka hadlaya aad baan ni bogaadinayaa aad baan ni soo dhaweynayaa hadda ka hor intaas in ka badan hadii inagu dadkuuni garan waaye kuwii adimada qabay inay ku ka hadashaan oo baahidina u baalkiistaan aad baan horta idinku soo dhaweynayaa taa waa bogaadin waxaana ka codsan ilaahay ka baryayaa isaga qafuur raxiina inta bugta ilaahay inuu caafimaadiyo qof kastana ilaahay inuu meesha ilaahay ka tabanayo ilaahay ka tiiriyo ilaahay waa qafuur raxiin isaga isjabaara dadka waa la isku wada fiirinayaa qofka adimada qaba iyo qofka lagu qaba kan indhaha qaba iyo kan soconaya iyo kan bukaba ilaahay way u simeeyeen ilaahay marka waxaan ka baryayaa ilaahay inuu meel kasto ka tabanaysan ilaahay ka tiiriyo midda waa baryada ilaahay midda xigta waxaan u soo jeedinayaa codkayga anigoo ku hadlaya codka degmada Xarfo ku hadlaya madaxweynaha dawladda Puntland iyo baarlamaanka wasiirada hay'adaha ay qusayso guddiga u qareema oo gobolka Mudug anagu aan ognahay oo u qareema dadka baraaliska kuwa curyaamada kuwa indhoolayaasha ah waxaan ka codsanaynaa degmada Xarfo in ay xuquuqda ay leeyihiin dadkaas in la siiyo dadka Xarfo ku curyaamay ama waxyahooda ku beelay kuwa waxa jira dalka iyo dadka oo dhabeelay kuwa waxa jira dalka iyo dadkaba xaq ku leh oo hadda ninkii hadlaya oo kale oo indhaha waxa wadacay baaruud asagoo dalka difaacaya dad badan oo noocaas ah jira kuwaas ay u soconayeen faali ka qaaday waxaana ka qaaday ilaa iyo 91 kuwii dalka iyo dadka u dhimanayay ama dawladnimo raadinayay baa degmada Xarfo jooga marka waxaan rabnaa inaan cod dheer iyo cod gaaban baa ugu sheegnaa dawladda Puntland inay ay sooyaan xuquuqda ay leeyihiin iyo hay'adaha ay qusayso oo si degdeg ah uga soo jawaabaan kuwa waxa jira caruur haysta caruurtoodii haysan waxyooda qayb kamid maqan yihiin oo si ay u shaqeystaan aan haysan waxaan rabnaa in la siiyo dhaqaale ay ku shaqeystaan waxaan rabnaa inay siiyaan kuwa waxa jira gaariyaal ay ku socdaan haysan waxaan ka codsanaynaa saacada bisha cas degmada Xarfo way ka shaqeysaa haddana shaqada ay ka qabato deegaamada kale oo dadka saasoo kale ay oo waxyahooda qayb kamid ay maqan yihiin degmada Xarfo xuquuqda ay aad ugu leedahay bisha cas kama ay hesho waxaan ka rabnaa in bisha cas xuquuqaha ay ka fuliso deegaamada Puntland iyo degmada Xarfo soo siiso oo kuwa curyaamada siiso oo kuwa indhaha la siiso marka aad baa in kale in bogaadinaya hore u socda xuquuqdiina way helaysan raasada waxa nin afgaaban hashiisa madal kama yeersado qofku maanta adduunka maanta joogo qofna lama garto xaqqa inuu ku aleeyihiin dawladda Puntland ay ku leeyihiin iyo degmadaba waxa la rabaa in codkiina ku soo dhacsataan waana salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan kan ka salaamayaa gudoomiyaha degmada gudoomiyaha ururka dhalinyarada xiriiryaha wasaaradda haweenka degmada Xarfo xubinta ka tirsan wasaaradda haweenka Xamdi agaasimaha caafimaadka
odayaasha iyo dadka halkaan isugu yimid ururka naafada oo meeshaan isugu yimid iyo bahda saxaafadda dhammaan kasoo qaybgalayaasha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdal salaan halkaan maanta waxaa la isugu yimid ururka naafada daafurkooda waa daafur meel walba waxa weeye qofadii joogta hadii aan qofku aso ismuujino asagu hadlin Soomaalidu waxay tahay nin aamusan hooyadiiba qadisay qofku haduusan oran warwaa ay kan anigana waxay adun la iskarta la isma joogo qof walba waxa weeye tiisa cuslaysay waan soo dhaweynaynaa iskarashadiina iyo waxa weeye daafurkiina waan soo dhaweynaynaa waana idin kala qayb qaadanaynaa insha Allah wix allaaliyo wixii codkayo u gaari karo aan wax kala qaban karno hadaanu nahay haweenka iyo dadka degmada u hadla intaba gudoomiyihii waa u joogaa insha Allah waxaan rajaynayaa in codkiinu meel dheer ku dhaco dadka halakan jooga inta badan hadda aniga dadka indhahay ugu qaban inta badan waxa weeye waxay ku naafoobeen wada miino iyo wada xabad hadda naafadoodu u badan tahay dad ama rag kale u yimidna way ku jiraan dadkii dalka difaaci jiray oo dalka soo difaacay ilaa 91dii dalka difaaciisa u taagnaa in ay dhibaatada soo gaarto laga aamuso oo laga sii jeesto aad bay u adag tahay oo arrin aad u adag waxa kale oo jira anigu aan ogahay degmada xarfo dadka jooga intaan kaliya ma aha naafada joogtaa taleefankayga 30 qof dadka badan baa ku jira hal qof ina kama jiro dadkan oo baralas ah oo naafa ah oo curyaan ah oo indhoola ah oo dad qof qalal qaba ah oo caruur yar yar oo saqiir ku jiraan oo dad waaweyn oo shaybabi ku jiraan oo waxa weeye dadka magaalada xarfa jooga oo naafada ah aad bay u farabadan yihiin waxa weeye halkaan inta joogta kaliya ma aha dadku aad bay u badan yihiin culays badan baa jira insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynayaa culayska asaga ilaahay faydo culayska ilaahay inuu naga faydo cid kasto ay arintaas qoysaysan waxaan rajaynayaa inay nagala qayb qaadato ama bisha casaato ama hay'adaha ha ahaato dawliga kuwa maxalliga kuwa madaxa banaan dawladda Puntland gudoomiyaha iyaga iyo maamulka iyaga degmada intaasba waxaan ka rajaynayaa inay arintiina meel dheer codkiina dhigaan in wax la idin qabtaan insha Allah waa rajaynayaa ilaahay idinkiis inaad macnaha idinkuna hore u socotaan oo aad macnaha aad dhaqaaqdaan oo aad albaabada garaacdaan qofka hadduu albaabka garaacin albaabkiisa lagu soo garaacayo aad iska warbixisaan aad baan idin soo dhaweynayaa arintiina waan ku mahadsantiin horena u socda wabillahi tawfiiq alxamdulillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim أولاً إلى ما تتكلم إيش أسوق كيفين دمانتين waxaan salaamayaa gudoomiyaha degmada gudoomiyaha ururka haweenka xiriiriyaha wasaaradda haweenka noqdoonada maamulka cusub ee naafada degmada xarfo baada saxaafadda dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam waan soo dhaweynayaa marka hore kulankan qiimaha leh oo naafada degmada xarfo ay ku soo bandhigayso waxa weeye baahiyaheeda iyo duruufaha haysta waxaan marka hore ku boorinayaa in aad sidaad maanta u dhaqaaqdeen oo aad u soo gudbisteen macnaheedu inaad gudbisaan baahidiina inaad hore ugu socotaan oo aad xafiiskii fudhaan degmada waxa jooga wax badan oo naafa ah in jiifta in socon kordha in waxa weeye yar yar saqiir iyo kabiir naafa leh baa joogta inaad xafiiskii intaad fudhaan samaysaan tirakoobka naafada degmada ku nool si aad soo gudbisaan qolo walba waxa weeye baahida loogu qareemi lahaa idinkuna inaad iska bilowdaan qareemka qolo wax weyn naafo say uga adag tahay oo uga macnihii culus tahay inaad isku qareentaan oo markaad ilaahay wuxuu idinku isku naxariistaan baa idin naxariisanaya markii inoo horeysa dadkiina naafada wax rabaa inaad idinku iska bilowdaan inta iyada kale naafada aan hayna waxa weeye waan hadoo alla inuu garab taaganaa waan idin la shaqeynaynaa ka door dhalinyaro ahaan waa qaadanaynaa wixii hadii ahaan lahayd muruq iyo maal inta wixii kalaanka iyo qaadanayna iyo qareemis ah aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa waana mahadsantiin horumarka aad maanta waxa weeye iyo kulanka aad iyo maamulka doorateen hore ugu socdaan in leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim shirku waa salaamayahay uu ugu horeeyo gudoomiyaha degmada xarfo wasaaradda ururka hooyooyinka naafooyinka waxgaradka kale oo ka soo qayb galay rag iyo dumar qaybtu rabo ha ahaado بعض الصحافة سلامة الإسلام كم سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعدي أدب نسول ويننا دت كان يجي يعدي بكسر شغيسين نفوي كان يسحل قامان ودقمة حرفه وعويين نفوي كودي يهين يجي يغيب كتير بدن أو كم كان هاتن انتبه هذا كورنا ويبقى هنايين
haatan waxa weeye maanta haday waxa weeye dahfurkan koowaad uu yahay aad baan u soo dhaweynaynaa ka odayaal ahaan afka odayaasha anoo ku hadlaya waa ka qayb qaadanaynaa waana garab istaagaynaa haatan waxbaan la wadnay waana la sii shaqaynaynaa hadii Ilaahay ka raali noqdo ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa in caafimaad khayr qaba siiyo waxa weeye dadkii hore waxay oran jireen biyo iyo baad buu qofku u baahan yahay caafimaad way u baahan yihiin baad way u baahan yihiin cunaaniin waxaan naareeyo ka warqabo way u baahan yihiin wax tiro badan bay rabaaniin waa kuwa lugala waa kuwa indhala waa kuwa baraalisa waa kuwa waxa weeye da'u yaal intaba way leeyihiin heesba waxa ku jira moogta uryaanka bacaga looba waayina aynka wax loo yiri kuwa cararayo la inay ku cimri qaataan innagana waxa weeye cimri qaadasha leena ka rabaa inaynu walaalaheen u gargaarnaa la rabaa inaan dhinac istaagnaa la rabaa inaynu la shaqeynaa la rabaa gudoomiyaha degmada inta ka sareysa ilaa iyo waxa weeye madaxweynaha Puntland inta waxa weeye gargaar bay ka rabaan ilaa heer federaal waa dad Soomaaliyeed waa muwaadiniin hadda iyagana xuquuqdooda in loogu soo dadaalo la rabaa lana garab istaago lana taageero intaasaan ku soo ururnaya waxba hadalka badin ma hadal ma harin assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh uu dheeraaday dadku waa iska saaxiib xaajo waa iska soo gabagabaysanayna ilaahay baa mahadsan subhanahu wa ta'ala halkaan ugu kulmiyay alxamdulillaah rabbil alamin waasna inoo bariyay way mahadsan yihiin dadkii soo qaban qaabay xafladan xaqiiqatan baahidu midna waa baahi la iska sheego la iska banka una oo la abuuro baahina waa baahi muuqata dadkan halkaan la isugu keeno ama ay hadlaan ama ay urur sameystaan waa baahi muuqata ee aan hayn banka un inta kadib way ku mahadsan yihiin ciidii isku keentay ka soo qayb qaadatay waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala hatta inaad isku timaadaan oo is aragtaan baa wax weyn ah haddaan wax kale leedin qaban ama kelmad dhiirigelin la yiraahdo sidii loo sheegayba ilaahay waa inuu nimceeyay subhanahu wa ta'ala qof kasta oo dhibaataysan mid ka sii dhibaataysan baa jira oo fooqa kulli dii cilmi cali qofka bini aadamka ah markii subax waagu bariyo wuxuu leeyahay 360 xubnood sida diinteenu inoo sheegtay mid kasta mahad baa ilaahay uga waajibaysa inuu u mahad celiyo ugu mahad celiyo dadka gawaarida wata subax gaari waa markuu bariyo waxay fiiriyaan biyaha oliyada waxyaalaha saliidaha kale ama hydroniga ama waxyaalaha kale taayirada qofka bini aadamka inta ka badan oo baahiyaad buu leeyahay laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala bas uu keen rakibay oo bini aadan wax loo xal saartay maahane adin ninku oranayo subaxii waxa iska fiirsaa bal indhaha biyahooda inay ku joogan dhagaha dhunkooda inuu ku joogo candhuufti inay ku joogto dad badan waxa jira aan helin candhuuf inay laqaan nin waxaan ogaa sheekhu ka sheekeynayay oo ku dhaqtar u tagay inuu candhuuf helo markaasaan waxaan iri maxaad ku falaysaa candhuuf ninka candhuufta wax qiimo hadda miyana leedahay qayn badan bay leedahay wuxuu yiri daqiiqad kasta waxaan u baahanahay inaan biyo ka bado hadii kale waan dhunta qalalis waxa jira marka ilaahay nimcooyin badan uu nasiiyay oo xisaabi karin isheena kaliya hadaan xisaabno inta nimca ilaahay inoo siiyay marka xisaabi ka saadaraad ilaahay wuxuu leeyahay inta udu nicmata la ilaaha tuhsuha nimada ilaahay hadaa tirisaan ma koobi kartaan qof kasta oo dib sheeganayo nimca badan oo ilaahay ku siiyay alxamdulillaah rabbil alamin way inta kadib waxa hadalka waa leeyahay naafa waxa laga noqdaa qalbiga wa sayyidul a'dha xubnaha ilaahay nasiihay xagee ugu muhiimsan qalbiga ilaahay wuxuu inoo sheegayaa in dhalaan inaysan jirin oo indhahana laakiin indha kale indhalaan kale inay jirto fa inna allaha ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur ilaahay wuxuu yiri markuu gaalada ka hadlayay ma indhalaa gaalada waxa lagu sheegay inay indhalaayihiin oo dhagalaayihiin oo aflaayihiin markaas waxa la ma indhalaa oo indhahana caadiga ma tirsana laakiin waxa dhintay indhii qalbiga ku jiray sadaraad waxay kala garan waayeen Allih abuuray iyo dhagax Allih abuuray iyo looda kuwa la caabuda kuwa dhagax caabuda wana aqli badan diyaaradu ku inaya hadana dhagax u caabudaya sababtu maxay indhii waa indhalay qalbigu ka indhalay wuxuuna leeyahay alxamdulillaah rabbil alamin kuwa badan oo xubna leh baan waxba qabsan adduunka ku soo kordhin dhibaato un la jooga sameeyna arag nin weyn oo 50 sano 60 sano jira oo wax adduunka ugu soo kordhiyay aysan jirin dhibaato waxaan ahayn لكن إذا كنت حصورة الحمد لله كان يدو كير إنه إلهي عابد سبحانه وتعالى هذا كل بشارة ستان عبادة العبادة يستوحوا في عن بدل الصبر كتم عضة إلهي وحكو إرساء غف بالآدم وحاوي الصبر